محمد كاين ولقي لوغان برينين هبر جعل كلا غرغرا لكن waxa la hadalkaas waa hadal daay keentay Suldaan Cabdillaahi god madal loogu tashanayo lagu xumeyn karo nin habar jeclo Suldaan Cabdillaahi xumeyn karaan ma jirto nin xumaan qoorana ma jiro waa qodbi aan wada siyaarana Suldaan Cabdillaahi Muuse bariga hore dadka anaga u soo jujubna u bariyeynay de xisbigiisii tii ka dhacday waa la ogaayo dhibaatadii ka dhex dhacday iyo mashaqadii ka taagnayd iyo qaraxyadii iyo weerarkii ka socday xisbigiisa dhexdiisa waa la ogaa sanad ka hor kelmadii qadafka hayda aniga iga dhacay soo celinay war macna kuma jiraan baan leeyahay Suldaan Cabdillaahi iyo qoyska reer Suldaan calina dad caadifad lagu xoqo maahe waa marjicii beelaha habar jeclo Muuse waanu tijaabinay haddaanu isu nimo arrinka aanu caray iyo caadifatoona kumaanu qiimeynay aanu rogrognayna Muuse anigu raggan aad u ixtiraamo ee halgankiina ku suntan waxaan noo muuqatay inaanu xaaladdan dalka ku jiro aanu dadkana isku hayn karaynin dulqaadkeedana lahayn waxaan ahay wariye Xamse Cawke halkan ku suganahay waa degmada Ceel Afweyn hooyga uu ka degan yahay degmada Ceel Afweyn boqor Cismaan aw Maxamuud Buurmadow boqor saacadihii la soo dhaafay guux siyaasadeed ayaa Soomaaliland soo wajahayay oday dhaqameedka reer Soomaaliland gaar ahaan beesha habar jeclo go'aano ay ka soo saareen degmadan Ceel Afweyn bal go'aanada iyo xaaladda guud ee dalka nooga waran bismillaahir rahmaanir rahiim horta marka hore waxaan hambalyeeynaa ama aan bogaadinayaa ama aan jeclahay inaan u mahadnaqo madaxda dhaqanka ee beelaha habar jeclo gudida guud ee beelaha habar jeclo ganacsatada beelaha habar jeclo aqoon-yahanka iyo xildhibaanada labada gol ee beelaha habar jeclo iyo acyaanta kala duwan ee beelaha habar jeclo ee ku midoobay inay go'aan ku soo saaraan Ceel Afweyn waliba hoyga aan ka deganahay Ceel Afweyn waxaan uga mahadnaqayaa sidii qiimaha iyo qaayaha badnayd ee turaala ahayd ee xaaladda dalka ay uga falceliyeen uga hadleen go'aamada ku dhiirashada leh ay u soo saareen aad iyo aad baan uga mahadnaqayaa talabaad waxaan filayaa go'aanka beelaha habar jeclo hal diidan ma leh horena waanu sheego waxaan ku ninkii wax ka bedeli karaya ha ka bedelo waxaan arkayay hadalla been abuur oo la xoqayo oo la leeyahay Suldaan Cabdillaahi baa ka mowqif duwan habar jeclo waxaan leeyahay suldaanku waa suldaanka guud ee beelaha habar jeclo suldaanku waxa weeyaan annagu ragga salaadiinta ah ee ka hoos shaqeeya ee u igmaday arrimaha beelaha inaanu ururino dhaqanna loogama yaqaan Suldaan Cabdillaahi inuu habar jeclo ka baydho arrimo caafimaad buuna u maqan yahay hadda uu ku maqan yahay imaaraadka ugu maqan yahay waxa weeyaan warkaasi Suldaan Cabdillaahi inuu beelaha habar jeclo go'aan gaara ka qaato loogamana maran dhaqan oo ma laha dadka been abuurka ka sameynayna waxaan leeyahay war habar jeclana idinkama geydo been abuur suldaanka guud ee beelaha habar jeclana qiimo iyo qadarin buu cid walba ku leeyahay kama geeyo taana intaasaan ku dhaafayaa waxaan leeyahay habar jeclo go'aan bay qaadatay madax dhaqameedkii habar jeclo uu ku midaysan yahay hadday jiif caaqil tahay hadday cuqaal tahay hadday salaadiin tahay waa go'aan loo midaysan yahay buu ahaa go'aankaas waana go'aan meel maray ummadda Soomaaliland way ku dayatay wayna ka falcelisay beelaha habar jeclo waa beelaha ugu go'aan midaysan leh oo aan lagu oqon inay kala jajabaan taasna wax werwerana kama qabno waxaan kaloo ku sheegay beelaha habar jeclo waa dad isqanciya haddaad aragtaan dad meelaha ka dhawaaqayo siyaasiyiin ay ka shaqaynaysana arrinkaasi waa arrin konses iyo lagu dhameeyo meel bay isugu soo wada beeshoonaysaa waadna arki doontaan maalmaha soo socday idan hal diidan lahayn taasina sidaa weeye boqor Cismaan aw Maxamuud Buurmadow hadalla maalmihii la soo dhaafay ka soo yeeray qaar kamid ah siyaasiyiin isku deegaantihiin gaar ahaan waliba wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland wasiir Maxamed Kaahin Axmed waxa uu sheegay in oday dhaqameedku go'aanka Ceel Afweyn ka soo saareen ay dad beel gaar ah waliba jifi hoos oo habar jeclo gaar ah ay laab xaadanayaan arrintaas adiga sidaba kula muuqata horta Maxamed Kaahin Axmed waa wasiirka daaqliga ee Soomaaliland وانا قدوميه حسبي كلميه وانا مدنتا بيلاها habar jeclo maxamed kaahin ixtiraam badan bay u haysaa aniguna dadka ugu ixtiraam badan baan ku jiraa
hadalkii maxamed kaahin maanti dhowd ka soo yeedhana cid uga jawaabaysaa ma jirto waayo maxamed kaahin cod seegay maalin hadday tahay habar jeclo intii hore u qabtay iyo wanaagga uu leeyahay baa lagu dhaafaya cidina ugama jawaabayso talana waanu ka yeelanay inaan looga jawaabin hadalkasi haddii la yidhaahdo hadalka maxaa ka jira habar jeclo kala qaybqaybsan ma jirto habar jeclana siduu wasiirku uu sheegay muuse iyo maxamed maahe habar jeclo way ka ballaaran tahay muuse iyo maxamed waa jifi hoose habar jeclo way ka ballaaran tahay ilmo sheekh isxaaq 4 ilmo sheekh isxaaq bay ka kooban tahay marka horta muuse iyo maxamed wax la yidhaahdo ma jiro guddida ninka hogaaminayay garwadeenka u ahaa waxa weeye waa nin ibraahim sheekh isxaaq buu ahaa dhaqankayga ninka hogaaminaya suldaan cabdilaahi ku xigaana waxa weeye suldaan maxamuud guuleed mire waa ardaaga maxamed abubakar uu sheegay uu ka hadlayay marka tala habar jeclo u dhantahay bay hayda shalay ku qaybqaybsan tahay maaha marka anigu waxaan leeyahay horta taasi wax jira maaha suldaan cabdilaahi madal loogu tashanayo lagu xumayn karna nin habar jeclo suldaan cabdilaahi xumayn karaana ma jirto nin xumaanu quudhaana ma jiro waa qudbi aanu wada siyaarana suldaan cabdilaahi marka taladiisa iyo go'aankiisana waa taan ku shaqaynaynaa weeye arrinka odayga maxamedna waxba ka odhan maayo ismana lihi maxamed kaahinkaa taqaanay hadalkiisii haba maxamed kaahin weligii loogama baray nin habar jeclo kala gurgura laakiin waxaa leeyahay hadalkaasi waa hadal da'i keentay weeyaane hadal xumaan maxamed kaahin qalbigiisa looga bartay ama cuqdad ku jirta maaha hadalkaasi waa hadal da'i keentay dulqaadkeedana habar jeclana way leedahay wanaagiisa faraha badanna waan ku ixtiraamayna uu leeyahay horena u lahaa boqor cismaan oo maxamuud buur madow gudoomiye Soomaale ayaa isna ka hadlay hadalkii ceelafweyn ka soo baxay go'aankii beesha habar jeclo qaadatay gudoomiyuhu waxa uu sheegay in koofiyad baclayaal ay soo saareen go'aankaas hadalka gudoomiyada ka soo la muuqda horta aniga Soomaale waa saaxiibkii weeye waana seedigayo ina cabdisalaan buu qabaa gabadh la yiraahdo sheekh xasan cabdisalaan ay walaalyihiin sheekh cabdisalaan walaalaanu nahay dhaqan ahaan iyo waxa weeyaan waana sheekhaygii anigu markaa waan ka sariiganayaa inaan Soomaali u jawaabo waayo waana nin culimo ah waana nin haddii aan laba leeyahay aanu saaxiib ahayn in badan ahayn waana nin xididnimo naga dhaxayso marka anigu hadalkiisa waan ka sariiganayaa habar jeclada duraysana kama mid noqon doono waana nin siyaasi oo haddii uu u arkay inaanu xoogaa ka xaglinay uu naga qabaa isaga iyo ururkiisuba inay nagaga cawdaan way naga qabaan taasi markaa isaga iyo xisbigiisuba way naga qabaan tixgelinteedaan siinayaa mana jecli inaan u jawaabo dhinaca kale boqor go'aankana soo saarteen ceelafweyn ku soo saarteen 2017 go'aan la mid ah soo saarteen bal go'aanka hore 2017 iyo go'aankan 2024 soo saarteen maxay ku kala duwan yihiin maxay ku kala doorateen labada musharax ee tartamaya labada go'aan horta waxa weeyaan ma kala duwan oo labada go'aanba way hirgaleen waana hirgalayaan labadabana waxa weeyaan midaan anagu iskay isu xilqano muuse markaan dhisaynay anaga is xilqanay muuse wuxuu nagu darsaday ma yahayna waxaanu islahayn xaaladda uu joogo abaal beeleedna waa nala ku lahaa muusena qaranka abaalba ku lahay raggii u soo halgamo ahaa waanu tijaabinaynay muuse waanu tijaabinay haddaanu isu nimi oo arrinka aanu cadhay iyo caadifatoonna kumaanu qiimaynay aanu rogrognayna muuse anigu raggan aad u ixtiraamo ee halgankiina ku suntan waxaa noo muuqatay inaanu xaaladdan dalka ku jiro aanu dadkana isku hayn karaynin dulqaadkeedana lahayn xaaladdan lagu jirana aanu dalka ka saari karin marka waana ninaanu soo tijaabino 7 sano aanu tijaabino tijaabo kale noogama baahna marka cabdiraxmaan cirana waxa weeye waxaanu ku dooranay tuhnahan ninaan caniid ahayn oo jarihiisa la qaban karo faraska caniidka aan jarihiisa la qaban karin cidina ma fuusho marka nin dadka wada ururin karaanu aragnaa anagu niyad sami iyo nin wax maqal leh nin diblomaasiya nin dadka ururin karo haddeerba isagoo aan maanta xil haynin qaran waa nin dadka ku urursanay waad aragtaa ummadda siduu isugu hayo hadduu mas-uuliyad weyn qabtana inuu isku hayn karayaanu maraynayna muuse berigaa horena dadka annaga u soo jujubna u baryeynay
dee xisbigiisii tii ka dhacday waa la ogaayo dhibaatadii ka dhex dhacday iyo mashaqadii ka taagnayd iyo qaraxyadii iyo weerarkii ka socday xisbigiisa dhexdiisa waa la ogaa ninkana waa ninka miimadaadsaanka ah dadka isku wada markaa muuse waxaanu u garannay inuu nasto doorka kan wixii aan tala siinayana horaan u tiisiiyey wuxuuna noqon doonaa madaxweynayaashii hore sharafta lahaa ee sidaa daahir yaale inta loo yeedho war dalka tale laga weydiiyo laakiin hogaamintii kumaanu garan waxaanu leenahay in ha ka nasto boqor cismaan oo maxamuud buur madow beeshaad ka soo jeedo 2017 dhiil bay la gashay madaxweyne biixi wax qabada uu qabtay ma jirto 2024 beeshaadu go'aan bay soo saartay musharax madaxweyne ay isku raacday inay doorato cabdiraxmaan ciro wax dhiilo ay la gashay oo bulshada u sheegi kartaan ma jira horta muuse abar jeclo waa dadka la yaqaano dantooda kama hadlaan dan qaran bay ka hadlaan maxamed ibraahim cigaal berigaanu dooranaan waxaanu war nimankaa ciise muuse mudday dagaal ku jireenoo way yara soo dhibaatoodeene dekadda berbera muddo 2 sana horta ha soo yara nafcishadeene ku wareeji nimankaa garxajisle hadda abtiyadaana xoogaa qulubqulubaa reerkiina iyo iyaga kala gaadhay muddana dhibaatay ku soo jireen ehelnimadii iyo walaalnimada soo noqota wixii xilaleed cid ku raaligelinayso ku raaligen maxamed ibraahim anigu raggii baan ugu yaraa maalinta la fadhiyo wuxuu war habar jeclo dantiile maxaa u hadlay habar jeclo danteeda kama hadasho muusena kulamaanu dhiil gelin cirana kumaan dhiil gelin cira waxaanu ka rabnaa somaliland wanaagsan oo cadaalad iyo wanaag iyo horumar ugu shaqeeyo dhiilka aanu iibinaynaa ama habar jeclo gelaysaa ka weeyo dhiil shakhsiya muuse lama gelin dhiil habar jeclo dan umaanu gelin waxaanu la galay dhiil somaliland oo dhan udana uu isku wada odaytinimo baanu la galay ugu dambeyn boqor soo dhaweyntaadii kadib hargeysa waxaad safar u soo baxday gobolada bariga Soomaaliland waxa soo martay jiidaha ay degan yihiin ciidamada SSB dad badan oo reer Soomaaliland iyo dad badan oo waliba Soomaaliyeed safarkaaga waxay lahaayeen boqorku wuxuu uga jeedaa makicin buu wadaa muxuu ciidanka u maraya bal u sheeg arinta aad adigu u marisay jiidaha horta waxay adkeynta nabadgelyada iyo adkeynta difaaca iyo horta lambar 1 ka ahaa anigu dhaqan ahaana laygama baran colaad inaan ka dhawaajiyo mid dheer iyo mid dhow toona anigu nin nabadeed baan ahay nabad baan dadka kala hadlayay inaan xumaan la samayn la gaadayn dadka la dilin colaadi xal aanay keeni karin wanaag mooyaane wax kale inaanay dadkan kala qaban ayaan ku wacyigelinay ta labaad waxay tahay inaan ku horgalo maadaama aan muddo dheer ka maqnaa ciidamada SSB wixii ka dhiman iyo wixii u qabsoomay iyo wixii lala qaban karo marka baahiyoodiina waan soo ururiyay tale waxaan siinayay ururin waxaan siin karayna waan ururiyay habar jeclana waan u keenay baahi iyo meelii wax laga qaban lahaa habar jeclana maanta waxay u diyaar garoobeysaa ciidamadaas si loo dhisi lahaa si wax looga qaban lahaa iyo cidii aan la kaashan lahayn iyo xukuumadda Soomaaliland wixii aan uga baahnaba taaba labadaba waan ka shaqeynaynay ta labaad dalka maadaama doorasho la gelayo in loo diyaariyo dadka loo sheego doorashadu inay dhacayso safar wacyigelin oo doorashana kama maqnayn marka inahaas iyo ina ku dhow bay ahayd wixii aan u wareeyay meesha ugu dambeyn fariinta u diraysa shacbiga reer Soomaaliland waxaan u dirayaa midnimo inay doorashada kaga gudbaan dulqaad inay kaga gudbaan hadda waxa ugu waaweyn ee tartamaya waxa weeye 3 xisbi saddexdaa xisbi nin waliba ninkuu moodo anagu taladeedii habar jeclo mar hore kulay jin Cabdullaahi baan hadda baan u wada ridaynaa beelaha kale horta wax leenahay nagu daydo halkaan xal moodnaydna nala odorasoo nala eega baanu leenahay oo ciro iyo xisbigiisa ayaanu sinayba talada dalka maanta ka saari kara go'aamadii habar jeclana sidaas ay ahaayeen talabaad waxaan leeyahay dadka doorashadaynu gelayno doorashaan isriix lahayn dalkeenu ma qaadi karo colaada uu ku jiro iyo taa uu galay hareeraha kaga shidan mid ka badan ma qaadi karo in loo tanaasulo madaxweynaha iyo xukuumaddana waxaan leeyahay haddaad soo baxdaanna waanu idinla shaqaynaano ballan ilaahay weeye inaanu idinla shaqayno haddaad soo baxdaan oo cod heshaan haddii laydinka helana anugu haba tartaminaan idin odhan lahaa haddii laydinka helana inaa hambalyaysaan oo wanaag ku hambalyaysaan baan idinkula talinayaa shacabkana waxaan leeyahay aynu u midowno sidii doorasho xor oo xalaal oo wanaagsan inuu ku dhici lahayd boqor cismaan aw maxamuud buur madow maalmihii la soo dhaafay baraha bulshada waxa la wareejinayay hadal aad kula hadlaysay suldaanka guud ee beelweynta habar jeclo hadalkaas aad hore uga hadashay dadyoga qaar iminkay soo cusboonaynayaan adiga hadalkaasi maxaad kala socotaa arrinta hadalkaasi hadalaan berigii shirki burco oo aanu sinay suldaanku go'aankii habar jeclo
aanu hadlaynay uu isaguna si uga hadlay intayada kalena aanu mowqif ka harsanayn baan ka hadlay suldaanku inuuna toosiyana xaq baanu leenahay inaanu toosinana waa suldaankayagoo xaq baanu leenahay cala alcumuum markaan ka hadlo hadalkaasi hadalaan iga soo baxay buu aniga meel ka dhaca ninka ragana waxa lagu yaqaanaa inuu yado arrinkaas waa ku khaldamay maalinta waan ku saar arrin meel ka dhacan suldaanka qaban bay ahayd igana qaban waxaan ahaa suldaanka ragga ugu dhow ee suldaanka mar walba kaalmeeye ee la qabta talada la qabta ee hawlihiisoo dhan ka warhaya gacan yaraa u ah saaxiibada gaarka ah adeerkay uu ahaayo aan ku tixgeliyo hadalkaasi hadalaan meel ka qaban buu ahaa waana reer Suudaan calina waan ka wada hadalno waan ka raali gelin baan hore uga bixiyay suldaanka wali maanu kulmin laakiin se raali gelinteedii way gaadhay iminkana dhakhtar buu ku maqan yahay arrinkaas wax ka qabiya ah ma jirto hadal khalad noo dhaxeeyna ma jirto suldaanku eedna ma leh dadkiisana suldaanku dulqaad buu u leeyahay wixii kaga yimaada rag iyaga la shaqaynaya salaadiinta ayna bashar baanu naho gefku mar waa dhacaa qoladan hadda nafiska siyaasadeed ka dhigaysay soo celcelinaysa sanad ka hor kelmadii qadafka ahayd ee aniga iga dhacday soo celcelinaya war macna kuma jiraan baan leeyahay Suldaan Cabdilaahi iyo qoyska reer Suudaan calina dad caadifad lagu xoqo maahe waa marjicii beelaha habar jeclo taasina intaas iskaga eg tahay ku soo celiyo soo dhiga anigana idhibi mayso reer Suudaan cali iyo Suldaan Cabdilaahina ma dhibayso arrinkaasi idinkase waxaan leeyahay ragga ku muusanaabaya suldaan baa beri wax la yidhi suldaanka 100 jeer haddaan wax dhigno carruurtiisii baan waxba ka soo qaadi maayo anna waaba ka xaal bixiya arrinkaas oo arrin dhammaaday buu ahaaye xoqistiisa macna idin male baan leeyahay